بسم الله الرحمن الرحيم ولكن محمد داعد وبرنامجكني كروغاديدا dhaqaalaha waxaan hore uga soo hadalnay tobanka qodob oo asaaska u ah maareynta lacagta waxaan ka soo hadalnay saddex qodob oo aad u muhiimsan maanta insha Allah waxaan ka hadlaynaa qodob aad iyo aad u muhiim ah qodobkaas waa qodobka afraad sameynta miisaaniyad lacageed waa qodob aad iyo aad runtii nolosheena muhiim ugu ah markii ay kugu soo dhacdo miisaaniyad lacageed waxaan filayaa asxaabta iyo khiyaarta ay daawanaysaa inaynan ka fakirin shirkad iyo dawlad laakiin qof kasta oo naga mid wuxuu u baahan yahay miisaaniyad lacageed oo hufan oo ka qayb qaadata maareynta lacagta ee noloshiisa inaanu sameysano miisaaniyad lacageed uma baahna inaanu billionaire nahay uma baahna inaanu millionaire nahay uma baahna inaanu lacag badan haysano hadii aynu soo gasho lacag ka yar $50 ama wax ka sii yarba waxaan u baahanahay miisaaniyad lacageed hadii aanu maareyno $1 oo soo gala waxaan u maareyn karnaa $100 aanu filayno inaynu soo gasho insha Allah haduu Alla idmo waxaan rabaa inaan si qoto dheer u sharaxo sidee ayaan u sameysan karnaa miisaaniyad lacageed qodobka ugu muhiimsan oo runtii asaaska u ah waxaan rabnaa inaan ogaano waxaan soo gala markaan ogaano waxaan soo gala ayaan waxaan sameysan karnaa waxa naga baxa iyo qaabkeen uga bixi lahayd insha Allah haduu Alla idmo waxaan soo gala hadii ay tahay mushaar hadii aanu helno shirkadaan ka shaqeyno commission aan ka helno hadii business aan leedahay hadii qaraabo ay jidho ku caawisa inta waxaad u baahan tahay inaad dhammaan qodid waxa ku soo gala even hadii ay tahay xataa mushaar kaliya waxaad qaadatid markii aanu qorno waxana soo gala waxaan u baahanahay inaanu ka fikirno saddexdii bilood oo ugu dambeysay maxaan soo galay lacagtana soo gashay xagee naga soo gashay cadad ahaan ama tiro ahaan intee leeg tahay markaanu qorno waxaan ogaanaynaa lacagta saxda ah ee qof ahaaneed ee ku soo gasha bil kasta kadib waxaanu fahmaynaa inaanu ogaano sidoo kale lacagta naga baxda bil kasta saddexdii bilood ugu dambeysay waxaanu sameeynaa baaritaan hadii ay jidho buugaag kharashaadka ku bixisid hadii lacagtaadu ay madho bangiga ay madho kharashaadka aad bixisid saddexdii bilood ugu dambeysay baan rabnaa inaan ogaano insha Allah baaritaan ku sameeyno kadib waxaanu soo helaynaa saddexdii bilood ugu dambeysay lacagihii kharashaan aan bixinay waxaanu helaynaa lambarka saxda ah ee bil kasta kharash ahaan kaaga baxda markaan hore u soo ogaanay kharashaadkiina soo galay kadibna aan ogaanay waxa naga baxa waxaanu garan karnaa miisaaniyadda dhaqaale ee xaaladeed qofkaas ku jiro runtii aad bay muhiim u tahay markii aanu sameeynaa intaas waxaanu helaynaa miisaaniyad dhaqaale oo hufan oo dhameystiran waxaan rabaa inaan si qoto dheer asxaabteeda ugu sharaxo lacagta isoo gasha qaabkee baan u qaybinayaa intee u kala qaybinayaa maxay ii sahlaya inaan sidii aan u qorshaystay miisaaniyadeeda inaan u maareeyo dhammaan lacagaha ku soo gala ee aad haysatid 60% kamid ah waxaanu ka dhiganaynaa lacagaha baahida asaasiga 60% lacagtana soo gasha ayaanu ka dhiganaynaa insha Allah 10% kamid ah dhaqaalahana soo gala waxaan u qoondaynaynaa emergency waxa la yiraahdo waxyaabaha degdega ah ee kugu imaan kara tusaale ahaan ilmo yar oo ka xanuusta caafimaadkaaga adiga gaar ahaaneed hawl kadiis oo kugu timaada waxaan u qorsheynaynaa 10% kamid ah halka waxaanu kharash gareynay already aanu qorsheysanay 70% kharashka soo gala waxaan kala qoondaynaynaa 10 kamid ah waxa soo gala inaan u bixino sadaqa ahaan dad islaamaan nahay sadaqadu waa muhiim waana qodobada ugu muhiimsan ee kordhiya dhaqaalaha ayuu kamid yahay marka waxaan soo gala waa inaanu wax ama 10 ama wax ka yarba aanu ugu qoondeynaa
toban ka mid ah markaan ugu qoondeyno sadaqo ama taakuleen qof islaam ah waxaan haddana u gudbaynaa toban ka mid ah inaan u qoondeyno waxbarashada qofku wuxuu u baahan yahay inuu wax barto ama markaas waxbarashada ku dhex jir ama haba ahaatee waxbarashada ka bacdi waxaad u baahan tahay inaad buugaag gadatid waxaad u baahan tahay inaad jaamacad ku biidhid waxaad u baahan tahay inaad iskuulaad ku biidhid waxaad u baahan tahay koorsooyin inaad dhigatid toban ka mid ah dhaqaalaha ku soo gala waxbarasho u qoondee tobanka soo harayna waxaan u qoondeynaynaa qodob asagu aad iyo aad u muhiim ah maalgelinta inaan u qoondeyno maalgelinta waxay noqon kartaa haddii aad tahay qof ganacsada ah haddii aad tahay qof nolosha hadaf weyn ka leh haddii aad tahay qof nolosha wax badan soo qabsaday tobanka waxaa u qoondeyn kartaa inaad ganacsi aad ku furatid ama dhaqaale aad ku haysatid haddii aad tahay arday tobankaas waxaad u qoondeyn kartaa marka aan leenahay dhaqaale boqolkiiba toban markaan leenahay maalgelin waxaan samayn karnaa si inaan waxbarashada ku kordhino tusaalahaan oo kale inaad koorsooyin dheeraad qaadatid aad tobankaa ku kharash garaysid kadibna aad shaqo fiican ku heshid kadibna mushaarkaaga uu kordhiyo iyadoo laftirkeedu waxay ka mid tahay maalgelin aad maskaxdaada ku samaysay saasaan u kala qoondeysanaynaa runtii markaan sidaa u kala qoondeyno waxaanu helaynaa miisaaniyad dhaqaale oo qorshaysan oo hufan waxaanu ka bacdi qodobka saddexaad aan samaynayna waxay tahay miisaaniyadda aan dejinnay haddana aanu kala qoondeynay inaanu eegno inay xaqiiqda u dhowdahay marka aad bil xaqiijisid ku dhaqantid ku dhaqaaqdid waxaad dib baa u fariisanaysaa waxaad ogaanaysaa waxa aad qoondeysay ma saxbaa maxaa ka dhiman xaggee baa gaab ka jira xaggee la rabaa inaanu ka yareyno qodobkee baan rabnaa inaanu yareyno kharashkee baan rabnaa inaanu kordhino kabacdi waxaanu helaynaa miisaaniyad xaqiiqda ku dhisan oo hufan qodobkeena shanaad ee asna muhiimka ah oo aad iyo aad u muhiim ah waxa ay tahay inaanu iska ilaalino inay kala bataan waxana soo gala iyo waxa naga baxa kharashka na soo gala waa in uusan ka yaraan waxa naga baxaya haddii qodobkaas aad mar walba ku fakedid maskaxdaada ku haysid waxaad ogaanaysaa ama aad gaaraysaa toban ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee maareynta lacagta sidoo kale qodobkeena asna muhiimka oo ah qodobka 7 ee 6 samayso kayd lacageed aad iyo aad qodobka muhiim ugu yahay haddii aad tahay qof arday ah waxaa muhiim aad u tahay ama muhiim ku ah inaad boqolkiiba 1 ama 2 kayd samaysatid haddii aad tahay qof ganacsada ah haddii aad tahay qof noloshiisa raba inuu horumar gaarana waxaad u baahan tahay boqolkiiba 10 ilaa boqolkiiba 15 kharashaadka ku soo galay inaad kayd lacageed ka samaysatid waxay kaydka lacageed oo ka naga caawinayaa inaanu miisaaniyadeeni lacageed ama qorshaheeni hadafkeeni guud uusan khalkhal ku dhicin markii ay hawl emergency nagu timaadana inaanu iskaga furdaamino aad iyo aad baa maasantihiin hadii aad nagu cusub tahay fadlan follow garee facebookgayga maxamed daacad haddii aad youtube-ka isticmaashidna subscribe garee sida casharada dambe aad noola socotid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu